wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. halkaasi ayaa waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle, xildhibaano, saraakiil, maamulka gobolka Hiiraan iyo shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Beledweyne. bacda salaam munaasabadan wax kala maaha waa soo dhaweyn madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare iyo wafdiga uu hogaaminayo ee sharafta badan ee ka kooban saddexda golaha senatarada iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka gabi ahaantii mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale mudane madaxweyne iyo mudanayaal waxaan idinku soo dhawaynaynaa gacmo furan. waxaad timaadeen magaaladiinnii, waxaad timaadeen dadkiinnii, waxaad timaadeen dalkiinnii, waxaad u timaadeen ummaddaad mas-uulka ka ahaydeen. ma rabo faahfaahin badan inaan ka galo, mana tilmaamayo waajibaadkaas kaliya waxaa weeyaan in aad idinku soo dhawayno gacmo furan, magaaladiinnii aad idinku soo dhawayno, dadkiinnii aad idinku soo dhawayno. waa ladii xiise qabaa, ummaddii way idin sugaysay. mudane madaxweyne iyo mudanayaal dhammaantiin waxaan doonaynaa inaan idinku soo dhawayno gacmo furan. أما بعد السلام جعل مدحوين إن فوق يا قبتي ورتواد ناركتا نيدا عن هاينا أنا جهدنا غير هيران هي نيدا عن كو قبنا سيد حقيقة ورتواد وجدا هل سأل الله كأوجادو وعسل لمود نقص واحد الله كأوجادو وعن إلهي كبرينا إن أظهرك وحين نجبا أخذ أدم يسترتو قبل كهيران هيجن وحوي هالشيء وديدني هاي جوار إن هاستقنا ما أقول إن أنا قال لك هيرشبelle وأقولنا هاي إن تكاد كيسو أتكذب يسو أرنتي تبلغ قاعد جوهر إن تبوعسو بولاي مقال مدح دي أتكدكتو ديار باقولنا هاي وأنا كنت جعلنا هاي نقول ما يهويني سلامت هذاك الجدو كسر لو دولة goboleedkii aad madaxweynaha u noqotay goboladiisii meel ka mid ah caasimadda Beledweyne. laakiin haddii aan xoogaa kabtan ku daro reer Beledweyne ama reer Hiiraan waxay leeyihiin caasimaddii koobaad ee siyaasadda waa Jowhar, laakiin caasimadda ganacsigana waa Beledweyne dhawayaan. guuha reer Hiiraan saas u yaala aad iyo aad tan kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidamada ama amisom ha noqdeen ama kuwa Soomaaliyeed ha noqdeen habka ay security-ga u sugeen. runtii madaxweyne waxaan ka rabnaa ugu horreyn mar walba waxaan ka rabnaa waxqabadkaada waxaa ka horreeya meesha aad ka timid maaragtay caasimadda ee lagaa soo doorta mar walbo inaad lugaha soo adkaysato. ma rabno madaxweyne sanad walba madaxweyne cusub in noo sameeyo ma rabno, anaga mana doonayno madaxweyne mar walba in la doorto. saddexda sano soo socotana saddex madaxweyne ma doonayno. madaxweyne maanta madaxweynehina tahay waa ku taageernay. runtii waxaa ka nasiib badan tahay madaxweynihii hore aadaa lagu taageeray. taageerada waa inaad kasbatid, waa inaa ma aragtay annaga maadaama aan shacabkii reer Beledweynena aan wakiilna ka nahay anoo ku hadlaa magacii dhallinyarada, haddana ma aragtay Hirshabelle aan aad ma aragtay loo jeclayn. waxaa laga rabaa inaan noqoto kii hoggaankaas jeclaysiin lahaa. ugu dambeyntii halkaasi waxaa soo afmeeray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle. waxaan aad ugu faraxsanahay maamuuska iyo karaamada iyo sharafta nalagu soo dhaweeyay. waxaan ka mahad celinaynaa sida qiirada leh oo naloo soo dhaweeyay iyo shucuurta naloo muujiyey. waxaad muuqata dadka Beledweyne gaar ahaan ama gobolka Hiiraan inay yihiin dad baahi u qaba dowladnimo. haddaan waxaas ka gaabinno ama meeshii la rabay aanan dhigin, xaqaad u leedihiin inaad cabirtaan dareenkiinna, xaqaad u leedihiin inaad la xisaabtantaan dowladdiinna, xaqaad u leedihiin inaad go'aan ka gaartaan aayihiinna iyo mustaqbalkiinna. waxaa laga dhawaajiyey in 3 sano maamulkaan u harsan tahay. waxaan rabaa inaan hortiinna ka caddeeyo 3 sano isla gaari mayno insha allahu tacaala. waxaadna baroobaysaan oo aad tijaabisaan 1 sano. haddii noloshiinna ay wax iska bedeli waayaan ama jidka laydinku wado aad ka shakisaan ama mustaqbalka carruurtiinna aad u cabsataan
waxaad xaq u leedihiin inaad dhahdaan baabuurka joojiye waa ka degaynaa inaad dhahdaan aad xaq u leedihiin haddiise noloshiinna ay isbeddesho oo dhaqaaluhu isbeddelo oo noloshu isbeddesho oo amnigu isbeddelo oo mustaqbalka carruurtiinna aad nolol ka aragtaan hadda sababna loogu mucaaradaa ama maamulka loo mucaaradaa ma jirtay ila tahay Zola Maxamed TV-ga caalamiga SBS TV Beledweyne